kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah farmaajo oo xalanay warqadaha aqoonsiga uu gudoomay safiirka cusub ee Mareykanka u fadhin doona Soomaaliya hadaba qaabka uu farmaajo u gudoomay waxa laga yiri warka ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya kulanajiis oo kursi xildhibaan loo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wajigabax la kulmay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Galmudug ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaan 5 sano kadib maxaa uu qabsoomay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixin ku saabsan arrimahaasi ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaan Rooble oo shaaciyay in dalku galay xaalad adag hadaba xaaladan dalku xilligan ku soo korortay maxay tahay warka ayaan idinku haynaa qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilaabnay farmaajo ayaa xalanay warqadaha aqoonsi kaga gudoomay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya madaxweynaha waqtiga ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo waxa uu xarunta xalanay kaga gudoomay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya Larry Andre oo ah danjiraha cusub ee Mareykanka ayaa madaxweyne Farmaajo la wadaagay dhambaal iyo salaan uu uga waday madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay madaxtooyada danjire Larry Andre ayaa dowladda Soomaaliya uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay isagoo soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono xoojinta xiriirka iyo waliba wax wada qabsiga ku qotoma danaha qaran ee labada dowladood madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay dowladda federaalka Soomaaliya ka xaqiijisay dhinacyada amniga dib u dhiska ciidanka dib u habeynta hay'adaha maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafiska waxaana madaxweynaha iyo danjire Andre ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo danjiraha cusub ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa si gaar ah wada hadalkooda diiradda ugu saaray kor u qaadida iskaashiga dhaqaalaha amniga la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada arrimaha bini'aadanimada iyo waliba horumarinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay danjire Larry Andre xilka safiirnimo ee loo igmaday isaga oo la wadaagay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayso gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo igmaday ayaa lagu yeeray qoraalka danjirahan cusub ayaa bedelay safiirkii hore ee Mareykanka u jooga Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto kaas oo caan ka noqday dalka maadaama uu la kulmay mawjadihii khilaafka iyo kala guurka ahaa ee Soomaaliya ay ku dhex jirtay labadii sano ee ugu dambeeyay Mareykanka ayaa waxa uu caawimaad dowladda federaalka Soomaaliya ka siiyay dhinacyo badan iyadoo taageerada Mareykanka ay ku qotonto dhinacyo kala duwan oo ay kamid tahay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybtood Mareykanka uu tababaray oo mushaaraadkooda bixiyo waxaana dowladda Mareykanka siyaasaddan Soomaaliya ay xilliyada doorashooyinka ku cadaadisaa in isqabqabsiga iyo waliba muranka ka taagan arrimahaasi la xaliyo waxaana baaqidii ugu dambeeyay Mareykanka ay soo saareen ay hanjabaado ugu jeediyeen madaxda Soomaalida oo ku aadan in ciddii carqaladeysa mar kale heshiiskii dhawaan Muqdisho ay ku wada gaareen madaxda golaha wada tashiga qaranka ee ku qotomay in doorashada la soo gabagabeeyay 25 bishan Febraayo ay cunaqabateen ay ku soo rogi doonaan assalaamu calaykum maanta way taariikhdu tahay 7 bisha labaad ee sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Mareykanku u soo magacaawday Soomaaliya mudane Larry Andre ugu horeynba danjiraha cusub mudane Larry Andre ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo dhambaal uu ka waday madaxweynaha Mareykanka mudane Joe Biden waxa sidoo kale danjiruhu halkaas ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka labada dal ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo wax wada qabsiga labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjire Andre ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaale iyo kan amni la dagaalanka argagixisada gargaarka bini'aadanimo iyo horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda
ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha ay shacabka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga, dib u dhiska ciidanka, dib u habeynta hay'adaha maaliyadda, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo deyn cafinta, iyo ugu dambeyn halka ay marayaan doorashooyinka heer federaal ee dalka ka socda. ugu dambeynna waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ugu hambaliyay danjiraha cusub mas'uuliyaddan loo igmaday, isaga oo u xaqiijiyay in dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay ku garab istaagi doonto hawshan diblomaasiyadeed ee loo igmaday. aad baad u mahadsantihiin. dhanka kale Kulan Najiis ayaa kursi xildhibaan loo xiray xilli Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu wajigabax la kulmayo. doorasho ayaa ka dhacaysa Galmudug 13 ilaa 14 Febraayo magaalada Dhuusamareeb. haddana waxaa soo baxaysa warar sheegaya in kuraasta qaarkood ay sii adkaadeen xaalkooda. Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale ayaa u muuqda mid rajadooda ay sii noqonayso mid hooseysa kadib kursiga xildhibaannimo ay raadinayaan. beelaha leh kursiga Hob 138 ee Habar Eji iyo Badhaale iyo weliba Sabuux ayaa laba ka mid ah ay diidan yihiin sida xog lagu maqlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in kursigaasi uu helo. Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa la ogaaday in kursigaasi uu la rabo wariye Xasan Cadde, balse aan la ogeyn cidda ku soo bixi doonto. odayaashii waxgaradka iska leh kursigaas ayaa doonaya in sanadkan Sabuux amaba iyo Badhaale mid xaq ay u leeyihiin la siiyo, maadaama Siciid Nuur Gariishe uu horay ugu fadhiyay oo Habar Eji uu ka soo jeedo. dhinaca kale musharax xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo ka tirsan saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa la sheegay in kursiga uu raadinayo loo xiray. Kulan Najiis ayaa raadinaya kursiga sumadiisu ay tahay Hob Eber 40 oo horay ay ugu fadhisay xildhibaan Nadiifo Faarax Jaamac, waxaana uu kursigeeda deegaan ahaan ka soo jeedaa golaha shacabka magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo Kulan Najiis uu gaaray. ciidamo hubeysan ayaa ka hormaray ka hor inta Cabdullaahi Kulan Najiis uusan tegin Caabudwaaq sida xogta ay sheegayso, waxaana Qorqor la faray in kursigiisa uu u xiro oo uu ku soo saaro Cabdullaahi Kulane. sarkaalkan NISA ka tirsan ayaa qayb ka ahaa shakhsiyaadka loo heesto kiiska Ikraan Tahliil Faarax, iyadoo madaxweyne Farmaajo ay qaraabo dhow ay yihiin. kursigiisana buuq badan kama imaan doonto sida siyaasiyiinta ay qabaan, waxaana kursigiisa uu qayb uu ka yahay doorashadiisa liiska 13 kursi oo 13 ilaa 14 bishan Febraayo lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. dhanka kale 5 sano kadib maxaa u qabsoomay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. 5 sano ayaa u go'day in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu qaab sharci weliba mid sharci darro ahi uu ku joogay Villa Soomaaliya, inkastoo wasiirkiisa maaliyadda uu qirtay in maaliyadda ay sagxadda gaartay. haddana waxaa muuqata inuu sidoo kale jiro farqi weyn oo u dhexeeya xagga amniga, federaaleynta, dhaqaalaha iyo xataa arrimaha dibadda marka la qiimeeyo halkii uu 2016 ugu yimid iyo halka uu maanta 2022 ugu tagayo. haddaba waxaan sameynay isbarbardhig ballaaran iyo qiimeyn lagu sameeyay muddo xileedkan Farmaajo 2017 ilaa 2022 iyo midkii madaxweyne Xasan Sheikh 2012 ilaa 2016 oo iyaduna aan dul istaagi doono marka la fiiriyo. dhanka amniga, Sebtembar 10 2012 markii madaxweyne Xasan Sheikh loo doortay madaxtinimada Soomaaliya, waxaa la tilmaamayaa in 80% ay gacanta dowladda ay ka maqnay dalka. 5 sano ee Farmaajo xafiiska joogay waxaa isbedelay istiraatiijiyadda dagaalka ee ciidanka weliba caqiidadooda. dhaqaalaha xilligii Xasan Sheikh waxaa la tilmaamayaa in uu yimid iyada oo dakhliga dowladda soo gala uu markaasi ka yaraa 40 milyan oo dollar. dhanka kale waxaa la tilmaamayaa in dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay wax badan ay kaga fashilantay marka la fiiriyo arrimaha diblomaasiyadda oo isqabqabsigeeda u badnaa, iyadoo xiriirka ay u jirtay dalal badan oo Kenya ay ugu soo dhaweed. waxaana dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo lagu eedeynayaa in intii uu joogay Xasan Sheikh Maxamuud dowladdiisa xiriirkii wanaagsanaa oo wadamada caalamka ay la lahayd xilligan ay burburisay. maamulka doorashada oo labada dhinacba xilligan la warinayo inay kala duwan yihiin, haddana Xasan Sheikh waxa uu markii ugu horeysay loo dhiibay doorasho caynkaasi ahi meelna uguma dhicin heshiiskii siyaasadeed. waqtigiisana waxa uu dastuuriga uu ku ekaa Sebtembar 2016, iyadoo haatan la tilmaamayo in Farmaajo waqti badan uu ku darsaday.
dhanka kale Rooble ayaa shaaciyay in dalku galay xaalad adag. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimada diinka ururada bulshada rayidka iyo ganacsada Soomaaliyeed oo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Rooble waxa uu sheegay in laga marmaan tahay in shacabku iyo dowladaba ay isku kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadkeena abaartu ay saameysay guud ahaan gobolada dalka. Ugu dambeyntii Rooble waxa uu tilmaamay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in dadkaasi dhibaatooyinka ay saameeyeen gargaar bini'aadanimo loo raadiyo. Guud ahaan daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulatadii waxaa idinkaga tagayaa nabadgelyo.